يوسف محمد ورسامي ayaa sida uu sheegtay madaxweynaha aan wali la dhaarin ee maamulka cusub ee lagu magacaabay Xiriirland. Maamulkan ayaa horay looga dhawaaqay degmada Galdogob ee gobolka Mudug, isla markaasna xiriir la leh dawladda federaalka ee Soomaaliya. Yusuf Maxamed oo haatan hogaamiyaha maamulka Xiriirland ayaa maanta kormeeray goobaha kala duwan ee ganacsiga, isla markaasna kulamo gaargaar ah la qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada. Yusuf Maxamed Warsame ayaa sidoo kale booqday saldhigga guud ee General Cabdi Xamiid, isagoo oo markaasi khudbad dardaaran iyo dhiirigelin isugu jirta u jeediyay ciidanka Xiriirland ee halkaasi degan. maamulada aanu deriska lahayn waa wargaarsi. waanu isku filannahay Soomaha. waanu isku filannahay, waxaanu qabsanaynaa xafiisyadeenna, waxaanu samaysanaynaa gobolladeenna, waxaanu samaysan doonaa degmooyinkeenna, waxaanu gaari doonaa sida maamulada kale ay u gaareen horumar. xaq baan u leenahay, cid naga hor istaagi kartaa ma jirto. waxa aad tihiin xooggii shacabka Xiriirland. waxaad maanta u taagan tihiin iyo waxaad berri u istaagi doontaan. waxaad ka shaqayn doontaan amniga, waxaad ka shaqayn doontaan horumarka, waxaad ka shaqayn doontaan dhismaha. wax kasta oo bini'aadanka Xiriirland iyo guud ahaan Soomaaliya u baahan tahay waa inaan gacanta la wada galnaa. anigu waa idin dhex taagnahay, habeen iyo maalin waa idinla jooga haddii alla idmo. halkaas baanu insha Allah ka bilaabi doonaa. xarunta Xiriirland waxay noqon doontaa gobolka Mudug Gaalkacyo. waanu guuri doonaa insha Allah mar dhow markaan magaalada dhammaysano. dhanka kalena isimada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degmada Galdogob ayaa markaasi hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyay Yusuf Maxamed Warsame oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha aan wali la dhaarin ee maamulka Xiriirland. marka uu horeysa 14 boqolkaad ku soo dhaweynaya aniga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cismaan Cabdi ilweyn baa la yiraahdaa waa bareera mahmadunto madaxweynaha Xiriirland oo hadda meesha taaganna boqol baa soo dhaweynayna. waxaanu leenahay mid maanta joogta oo meesha ka dhacaysa waxa weeye kana nafdawa وريا ورئيسه وهرجشي وهرجليسا دتك ماشي جوجانا وي قدوشي قورتي كلامي توك سنة يستيقظنا أنا بنانا وهلا يجوديا وقالوا لي ورعني والله وقالوا لي تنويني أنا بقول كي بقول بطلع صدق هذه الدولة السلام عليكم وعن كل سلام يا حفلة سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سور ويننا مدحوينها Xiriirland aad baan soo wada shaqeynaa shacabkan waxaan leenahay taageero iyo madaxweynaheena iyo horumarkiina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد داير سال شاعره warbaahinta caalamiga SBC degmada Galdogob.